الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu Cabdiraxmaan Geestiir Cabdiraxmaan Maano waxaan ku suganaa gudaha magaalada Boorama waxaan halkan ku soo gudbin doonaa waxoogaa fariin gaaban oo aan ku cabiray dareenkayga teeda bulshada iyo teeda gaareedba taasoo aan kaga hadlayo dhacdadii dareenka badneed ee ka dhacday 14 bishan aynu ku jirnay gudaha magaalada Muqdisho taasoo guud ahaan Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Islaamkaba saameyn weyn ku yeelatay haddaba maanta ma aha maalin hadal uma jeedno laakiin waxaynu maanta u baahnay ficil aynu nacmideyn kara aragtiyeena waxaan ila wadaagay waxoogaa maansiiro kooban oo dareenkayga maxay cabiraysaa waxaan ku bilaabay maansada dareen wadi murug bay ka dhalato waxa keenay mahadhada maqalkeedu daran yahay arageeda muuqana indhihii miliilicay ilintoodu marato maalmahan dareenba anigaba imaan rogay naxdintiyo masiibadu iyo iimaanka ka guurin maalin ay ahaataba marun baa xor laga noqon Muqdisho waxaa dhacay cid kastoo mas'uul ka ah milay qabanayaa iyo shakiisana midnimada ka adago maantaynu joognaa markii laga bogsoon lahaa magacooda tirilayn kooxdani masiibada doqonkiyo maraanka maatida gumaade Muqdisho ay haquusanin hana qarinin meelaha manaxaanku ku galo hana yeelin miidhada cadow ku maleegiyo mindiyaha qarsoone loo dhiiba maangaab magaceena qaato fulinaya mahadhada qaraxiyo masiibada deeqsi maalqabeeniyo aqoon meel fogaadhiyo marwo hooyadeeniyo aabbaha la maamula maaraynta reerkiyo dhalinyaro muhiimo barri iyo maguurtada dalku magaansan laa iyo mas'uul garasho dheer iyo matalaya shacabkiyo lagu waayo maatida iyo birimageydada ummadii ha moogaan cadow maalin iyo leyl midab kugu dagaayo mafac kula cunaayo milaygii aad gaadhaba midigtaada joogo aad taqaano muuqiyo mininkuu ku nool yahay misana adoo qaba inuu kula mataan yahay dabinkuu maleego hooyo mehera joogtiyo masruuf raadinaysiyo dadkiisuun ku soo maqan maqlakaasi waa nacab u matala gumaysiga mijaxaabinteenno marna waxaan qarsoonayn inuu kaasi madhan yahay necab yahay midnimadiyo Muqdisho dadkeennaba macnihiya ujeeddada aanu daga gunteede dilaaga masiibada ka dhigtay mashruucee qaraxiyo uu maamulay kuma kala dadwey haddaanay badhnaga mida ka helayn miciiniyo mara ay huluushaan marka ciidan loo diro muuqooda raadshaan mooyi lagu gargaarayn ma naqaan la odhanayn weligay ma aragiyo mayadana la badinayn marna kuma qarsoomayn Muqdisho dhexdaade bulshay maanta dabadeed hebelada lamaan rogay tol ayaa la moodine murtadkaa la tababaray intuun miina kala xidhin maalmihii horoo tegey tullamida inagu degin qof kastoo munaafaqa ama loo malayn karo mashaqada kuwaa wada inuu meel ka soo galo ama kii u marag fura nimankaa mishiinkiyo nagu meedhiye qaraxyada midnimaa ka adagoo iyagana mudayse maqribkiyo habeenkiyo meertada dharaartaba halkii ay marayaan midhidh u dabagala ilayn meel fog kama iman kuwan ina miraayiye maansada had iyo jeer muuq garashadoodo guryahay midiishiyo moodhadhada ku haystaan kol ka soo maleegaan duulaan masiibo leh marna ay ku laabtaan Muqdisho ka soo saar kooxda masiibada marun aan ka gamaanay nimanka mashxaradiyo maal dhaqashadiis iyo dawladnimo aan maalniyo dadkan wada madluunka macna badan ku deeqdiyo noo diidan magaciyo nabad lagu muraadsado murugtaan ka qaadnay dhibta ayna mariyaan kooxda masiibada magacooda beegsada marun aan ka gamaanay maqrib mashrib adduunyada magaalooyinka jira midda ugu mudnaan badan Muqdishona ha noqotee ummadii ha ismaamula madaxdiina garab gala murugada colaadeed aan ka saarna maankee kooxda masiibada magacooda beegsada marun aan ka gamaanay Muqdisho ay haqarin bahal meydkaaga dheefsada oo maanta dabadeed yuun xidhin maleegaha ina mooro duugay murtad dhiigga biilsada
dalkan maanta dabadeed yuun sii mushaaxine kooxda masiibada magacooda beegsada marun aan ka gamaane daacadnimona muujo muqdishooy degmiyo gobol mas ku jiraba soo saar maskuu galana wada guba mudan iyo sidaan beri u ahayn dad wada mida mahuraan aan kala biqin ku macaasho nabaddana mar labaad ha noqotee muqdishooy allow nabad murtidii ku soo xidhay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu